Harry Maguire siyaarka waa laga soo qaaday markaan Brentford ayaa duulaana Red Devils ayaa duulaan lugiya waa la soo tuuray kubadaas goolka koowaad ee ciyaarta United waa lagu shubay markaan Red Devils waa lagu shubay markaan 9 daqiiqo waa hal yeemer Brentford hal United kan hel. And David De Gea, who had a fine season last time around, has just conjured up an epic error. It's an absolute howler. Things go from bad to worse for Man United. It's a simple save for David De Gea, but it slips under his grasp. United claiming there's a foul. They think Ronaldo's been fouled in the build-up. I don't see too much wrong with that. It's a low shot. Not too much power, but it squirms under De Gea's body. It's one he has to save and one he won't want to see again. diiqa xulka la rooqay farciyaha raadi Isbaanishka ayana markaan waxa ka fagtay mid kamid ah kubadii ugu ciibsanaa ciyaartan la tuuro Isbaanishka kaamirada ay qabanaysaa caabo uma ahabeen u wacan Salaanga ayana markaan ugu shubay kooxda Devils 10 daqiiqo kaliya ayay ku qaadatay kooxda Brentford inay hoggaan ku qabatay ciyaartan weyn digeeya caabo waxa ka fagtay mid kamid ah kubadii ugu daciifsanaa kuna ciyaareedkan Red Devils ayaa markaan duulaana Lucas ayaa sita waa la baasay markaan Sancho ayaa sita markaan Eriksen Bruno Fernandes meesha qor kubadaasi isku day cajiib ay sameeyeen inkastoo hoggaanka looga hayo hal gool yeeber tan waa kooxda ugu guulaha badan tan waa mid kamid ah kooxaha ugu taariikhda wanaagsan qaaradda Yurub laakiinse 10kii sano ee la soo dhaafay waxay baal mugdi ugu jirtaa kubadda cagta inay ku guulayso iska daayay xitaa Champions League ay weedaa marqaar tan iyo Ferguson ayaana ugu dambeysay inay ku guulaysato horyaalkii caawa ciyaareyso tani Ferguson ayaana ugu dambeysay inay ku guulaysto tartanka Champions League tani Ferguson ayaana ugu dambeysay inay ku guulaysto koobka Club World Cup tani Ferguson ayaana ugu dambeysay koob walba ay ciyaari jirtay xitaa Community Shield-ka laakiin tartanka European League ayuu Jose Mourinho qaaday markaana kooxda Brentford waa la baasay kubadan Red Devils ayaa sita Christian Eriksen wala soo qaaday kubadaasi Ronaldo wuxuu u muuqan karaa mid ciyaartan dhameeysan karin kaamirooyinka ay qabanayaan ciyaaryahankan ayaa inoo sheegay karaa in dhaawac ciyaartan loogu saari karo Bruno Fernandes ayaa sita Manchester goolkii labaad United waa loogu shubay goolkii labaad Jensen ayaa ugu shubay Red Devils nil Brentford 2 bye bye United nil Brentford 2 on Brentford's wildest dreams. It could be a failure of epic proportion for Erik ten Hag's man. Determined to play out from the back, punished emphatically. Sometimes you just have to be sensible. I've just said they're setting traps. They're inviting United to play out. They do it again. That short ball into Christian Eriksen, closed down quickly, and they're punished again. Sometimes you have to bypass the press. David De Gea has to look longer. Christian Eriksen being brave, coming to get the ball, but he's closed down so quickly. There's not a lot he can do. Red Devils goolkii labaad ayaa lagu shubay caaba Isbaanishka shabqilaaliyaha caaba uma aan habeen wanaagsan iskiilow inay taa kooxda ugu guulaha badan tan waa kooxda ugu ciibsan horyaalka Premier League Eriksen ayaa loo baasay kubadaasi inkastoo Eriksen oo cadaadis badan kala kulmay ciyaaryahan Jensen ugu dambeyn waa laga qaatay goolkii labaad ayaa lagu shubay 8% waxa ku lug lahaa qaladka goolhaye David De Gea 20 qoro la sii karo Christian Eriksen United ka ayaa markaa duulaa lagu yahay inkastoo kubadaasi banaanka ay u baxday kubad Bilizor ayaa soo tuuray doona kooxda lagu magacaabo Brentford ayaana soo tuuray doonta kubad Bilizor waa la soo tuuray kubad joogsan ay ku socotaa waa la soo saaray markaan Brentford United ka goolkii saddexaad ayaa lagu shubay 30 daqiiqo saddex yeemer halkii ayaa loo socdaa tani waa waali cas ma qaybta koobaad ilaa gool laga dhali rabaa
qaybtii koowaad United-ka 3 gool ayaa lagu hormarsiinaya 30 daqiiqo 3 gool iyo eber gool madax cajiib ayaa lagu shubay kooxda kubadda cagta Manchester bal eegsi loo soo tuuray madax ayaa lagu soo dhaftay madax ayaa loo sii labeeyay 3-0 United kanil Brentford 3 There's only one winner in that. Coming together, Ben Mee against Martinez. He wins it comfortably. It's a simple goal. Ben Mee doesn't care. The Bees are absolutely buzzing. Brentford 3, Manchester United 0. Brentford 3 United kanil waxaan daawanaynaa filim hore mar hore ay soo dhigtay kooxda Brentford waa filim ku celis ayaan daawanaynaa skilo sorry Harry il capitano sorry xitaa taageerayaasha soo galay garoonka waa wax wali aan la aqbali karin siyaarka waxaad caybeynaysaa ninka ugu sareeyo the god ninka ugu sareeyo kubadda cagta waxaad caybeynaysaa ciyaaraha markaana Brentford ayaa duulaana kii afraad United waa laga dhigay goolka afraad ciyaarta 4 gool 34 daqiiqo 4 gool 34 daqiiqo United kanil Brentford 4 filim hore u daawano ciyaartan mar hore daawanay sameeyna waa dadkan This is unbelievable. Absolutely unbelievable. The Premier League celebrates its 30th birthday on Monday. This is one of its biggest ever stories. Manchester United 4 goals down at Brentford. If in doubt, clear your lines. But it's with a purpose, and they've got runners, and they've got ability. And Mbeumo's got the strength and quality to finish it off. weer walba ay qaadayso kooxda Brentford boqolkiiba 89 waa gool sida hore ay idinku sheegay intuusan dhalan goolkan maxay tahay sidaan maxaa ka qaldan waxaanu daawanaynaa filim ay dhigtay kooxda Brentford mar hore oo ciyaarta mar hore ay soo dhamaatay qayb koowaad 34 daqiiqo 4 gool iyo eber tani muku tilmaami karo kubad weyn tani kuma tilmaami karo inay kooxda Manchester ta kooxda ugu weyn iyagoo heestaan Ronaldo iyagoo heestaan Rashford caawiye Bruno goolhay David De Gea ayayna caaw lagu leeyahay 4 gool Brentford way u qalanta caawin ay adkaato hanaan xumida daafac isku xirka oo Harry Maguire ah iyo qabasho la'aanta iyo jabka goolhay David De Gea ayaa sababaysa in kubad walba ay qabsadaan Brentford inay dhaliyaan gool u sahlanaa karto halka United ka weerarkeeda ku dhibantaa in shabaqada xitaa ay ku shoodaan kubad ilaa imaka goolahayaha kooxda kubadda cagta Brentford muusan gaara shabaqiisa kubadda halis geli karta goolahayaha lagu magac David Raya ma 4 gool ma 34 daqiiqo 4 gool ah United ka lagu leeyahay xitaa weerar ay sameeyeen sorry mugdigaanood ku jireysaan ilaa iyo aad heshaan ciyaartooy wanaagsan macallin wanaagsan iyo dad la taliyaal wanaagsan markaan Brentford makiishanaad haddana waa ceeb please waa ceeb ka joojiya waa ku naceena am taageerada waa ku naceena duruuftoo lagu diiday sababta 9 sano duruufa waa 9 years 9 sano tan Ferguson sidoo baxay ma duruuf way xaqiiqeen way daaleen sidii taageer way daaleen maxaa soo wadeen wargoodka xataa waa keenteen oo Ronaldo uu qabalayay daqiiqadii ugu dambeysay kama ayaa kaartay ciyaarta saaxiibyadan soo dhamaato sorry United ka bye Manchester afar yeebar ayaa lagu harqadiyay kooxda Red Devils
his face will tell it all. Red Devils ayaa duulaana jaaniska ugu dambeeya ayaa istaan laga soo qaaday kubadaasi foul oo sii galeen foul ayaa sii galeen Manchester ugu dambeeyna ciyaarta saaxiibiyo la soo dhamaatay Red Devils caawa guuldar ayaana dushkan loo saaray 4 Ibrahim ku soo idlaatay United Kaneel naadiga Bamfordna 4 ay ku adkaatay caawa intaas ayna ku soo gabagabeynaa tabintii tooskeed ee horyaalka Premier League qaybta kayd soo taageerayaasha Manchester toddobaadka dambana Liverpool ayaa sugaysa waa idinkoo dab igu shidan oo hadan dabka lagu sii daray tani guud saaxiibayaal aan oo idin nabadgeliyo